wararkii ugu dambeeyay qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaan kula wadaagaynaa. inta la xaqiijiyay 10 ruux ayaa geeriyootay halka 18 kale ay dhaawacmeen kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga buuxiyay uu ku qarxay xire ay leeyihiin ciidamada xoogga dalka gaar ahaan guutada 27aad ee militariga dalka. siday xaqiijiyeen waaxda caafimaadka ee gurmadka degdega dadka dhaawacmay waxaa la geeyay isbitaalada ku yaala magaalada muqdisho si halkaasi loogu daaweeyo waxyeelada soo gaartayna laga dhayo, halka dadka dhintayna qaarkood la sheegay in la dhigay xarumaha caafimaadka. inta la xaqiijiyana waxaa qaraxaasi ku geeriyootay ilaa 6 askari oo ka tirsan ciidamadii ku sugnaa xarunta la weeraray, waxaana suurtagal ah tirada inay intaasi ay ka badato maadaama gaariga qarxay la sheegay in gudaha uu u galay xerada, waxaana sidoo kale la sheegay dad goobta ku sugnaa in iyagana dhimasho iyo dhaawac ay soo gaartay. ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii maanta ka dhacay xere ay degan yihiin ciidamada xoogga dalka gaar ahaana guutada 27 abriil oo ku taala dhabarka dambe ee xarunta xisbiga iyo istaadiyo muqdisho. ma jiro wax war oo ka soo baxay laamaha amniga ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ku saabsan qaraxan, waxaana uu ku soo beegmay qaraxa iyadoo magaalada inta badan wadooyinka ay yihiin kuwa xiran isla markaana isgoysyada la dhigay ciidamo badan. xerada weerarka qaraxa lagu qaaday ayaa waxaa degan ciidamo ka tirsan kuwa militariga, waana guutada 27 abriil oo dhismaha xarunta ay degan yihiin loogu magac daray, waxaana u xiran wadada u dhaxaysa isgoyska Baar Ayaan iyo General Daawud oo dhanka bidix ka marta hoteelka Cisbartiibada. xerada waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan militariga dowladda federaalk ee Soomaaliya, waxaana la sheegay inay ka howlgalaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, balse xerada ayaa waxay u ahayd talis lagu kala bedelo. haddaba yuu ahaa bartilmaameedka weerarka? waxaa isi soo taraya macluumaadyada laga helay qaraxa iyo ismiidaaminta ahaa ee barqanimadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho, gaar ahaan afaafka hore ee xerada ciidamada ay ku taala agagaarka istaadiyo muqdisho oo ah garoon dhawaan dib u dayactir lagu sameeyay. qaraxa oo laga buuxiyay gaari waxyaabaha qarxa ayaa waxaa kaxeynaya ruux, waxaana uu la beegsaday xerada ay leeyihiin ciidanka militariga Soomaaliya. 10 ruux ayaana la xaqiijiyay inay ku dhinteen. xerada la weeraro oo ciidamada militariga dalka ay degan yihiin ayaa waxay tahay halka laga hago howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ciidamadaasi ay ka fuliyaan gobolada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. sida warbixintan ku ogaanayna bartilmaameedka weerarkan ayaa waxa uu ahaa mid lala damacsanaa taliyaha ciidamada guutada 27 abriil General Maxamed Axmed Tareedisho oo la sheegay inuu ku wajahnaa xerada inta uusan dhicin qaraxa, waxaana la soo wariyay inuu ku dhintay darawalkii wada gaarigiisa. sidoo kale waxaa dhaawac uu soo gaaray sida la sheegay taliyaha xerada la weeraray oo lagu magacaabo Xasan Maxamuud Garaad Xasan Dhuux. sida aan xogta ku ogaanay, al-shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda qaraxan oo si weyn jugtiisa looga maqlay xaafado dhowr oo ka tirsan magaalada muqdisho, waxaana ay shaacisay inay doonayeen inay ku wiiqaan awoodda qaybta 27aad ee ciidamada xoogga dalka. si kastaba haatee 13 bishii Juulaay ayay ahayd markii qarax midkan la mid ah uu ka badbaaday taliyaha ciidamada xoogga dalka Odawaay Yuusuf Raage, kaasi oo ka dhacay inta u dhaxaysa isgoyska Tarabuunka iyo isbitaalka xoogga ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir.